Waxa uu diiday inuu saamaxo Abihiis kadib markii uu ka tagay isagoo yar. Qisadan waxaa ka warramay Fadxi oo ah aabbaha dhalay wiilka. Fadxi waxa uu yidhi, waxaan ka cabanayaa oo guriga ay ku nool yihiin xaaskayga iyo carruurteyda ii diiday inaan galo oo la noolaado inankayga curudka ah oo la yiraahdo Amiir. Waxaana la weydiiyey sababta, wuxuuna yidhi, iyagoo yaryar baan ka tagay Masar, waxaanan iibsaday gurigaygii oo ay carruurteyda ku noolaayeen. Daruuf baana igu kalliftay, iyagoo ogeyn baana iibiyey, oo si qarsoodi ah ayaan Sacuudiga ugu safray. Waxaana jiray khilaaf u dhexeeya aniga iyo xaaskayga. Kadib markii aan safray ayaa carruurteedii iyo hooyadood loo sheegay inaan gurigii iibiyey. Waxaana dul yimid dadkii iibsaday, oo sidaas daraaddeed waa laga saaray gurigii. Xilligaas carruurteyda waxay ahaayeen kuwo yaryar, waxaana ugu weynaa inanka Amiir. Kadibna waxa ay la degeen islaan ayeeyadood ahayd oo hooyadood dhashay. Halkaas ayayna muddo degganaayeen, iyagoo la kulma duruufo adag. Kadib inankii Amiir ee carruurta ugu weynaa ayaa ka tagay waxbarashadii, waxa uuna raadiyey shaqo. Waxa uuna ka helay wasaaradda dalxiiska dalka Masar, isagoo dhexda u xirtay inuu walaaladii ka yar koriyo oona waxbaro. Odaygii aabbahood 10 sano kadib ayuu Masar ku soo noqday, isagoo faramaran oo aan waxba gacanta ku hayn. Waxa uuna doonay inuu xaafaddii dib ugu soo noqdo, balse inankii Amiir baa diiday inuu Abihiis saamaxo. Kadib odaygii waxa uu yimid TV-ga Al-Jadiid, waxa uuna u cawday wariyihii barnaamijka xilligaas ku jiray. Wariyihii TV-ga ayaa warqad casuumaad ah u diray Amiir si uu uga soo qayb galo barnaamijka Al-Kariim. Kadibna wuu aqbalay oo wuu yimid. Kadib waxaa la weydiiyey inuu odagan garanayo. Waxa uuna yidhi, waan garanayaa, laakiin waa khayru mas'uul oo hadalkiisa ma doonayo, waayo annagoo yaryar buu naga tegay, gurigiina nagu dul iibsaday, wuuna na dayacay. Markaas ayaa wariyihii yidhi, soo ma ogid inuu aabbaha yahay? Wuuna qaldamay, waxaan kaa codsanayaa inaad saamaxdid. Wuuna qiranayaa qaladkiisa, balse Amiir waxa uu ku adkaystay inuuna saamaxayn oona doonayn odagan. Markay yaraayeen noloshooda dayacay, odaygii ayaa yidhi, aabba waan qaldamay ee isaamax. Xilligaas istuudiyaha dad badan ayaa fadhiyey, dunida oo dhanna waa laga daawanayay, balse inanku aad ayuu u madax adkaay, wuuna diiday. Wariyihii ayaa la hadlay, waxa uuna ku yidhi, magacaagu waa Amiir, marka waxa aad noqotay nin madax adag, marka iska saamax, waa aabbaha. Tan kale dunida oo dhan ayaa laga daawanayaa, ee naga aqbal saamaxaadda. Inankii Amiir wuu istaagay, wuxuuna ku adkaystay inuuna saamaxayn. Wariyihii ayaa yidhi, haddaba iska bax, laakiin ka fakir arrinkan oo maskaxdaada ka shaqaysay. Waxaa laga yaabaa inaad hadda caraysan tahay, caraduna yaanay ku qaadin. Amiir ayaa istuudiyihii ka baxay, isagoo ku adkaysanaya inaanu la hadlayn Abihiis. Waxaana ka murugooday dhammaan dadkii meesha joogay iyo kuwii daawanayay. Kadib mar dambe ayuu wariyihii tagay gurigii reerka, waxa uuna la hadlay Amiir oo si deggan wax u fahansiiyey. Sidaas ayuuna Amiir wax kaga yeelay.